بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الشرف ترميال كستاجوكتين وعنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت دمت إلهي ونحريستو ودن كان مالمهان قرحيادة وقف يعنادي لكن شالي نفتي ساليقو أيا إزغوز كجوب مقايد كتال دات مساكين إسكفاديان دات داليار إسكشاهيان وماشا الإسكفادي أيو إسكو قرحية قف كانوا هو كسوكعي قريو كسوكعي qabayaashan dadka way baabi'iyeen maalmaha yeeda amniga ilaahay khayr asiye aad u dadaalay laakiin ma nin naftadiisa qadimay miya cili karta oo usi inuu nafta iska gooyo damacay qof bin aadan oo cili karta mal walaalo dhimasho hada adirt meel gooni tan kaliya asqar umadan dhimasho hada daaribta hadda ma rabaan in kasto wax kasta qadar yihiin adiga hadaar naftadaada inuu gacantaada ku halaagto hadaarib walaalow meelahaas banaanaha kaliya isku qarxi ummadda ilaahay ka leexo markaste maalin kaste dheeshii inoo la bedelo baabuurtii wixii adaa abni dadaaleen maanta inuu qof la soo tashkiiliyo qofkaas aniga horta caafimaad kuma tilmaamo maxaa yeelay qof bini aadan oo meer qabo maskaxdiis taam tahay inuu orod isdilay adduunka meel ay jirto mar dhaqaale kasta hada lagu sii isdil u dhaho yaa cunay dhaqaale adiga isdilo qof ogolaanay ilaahay abuurtay ilaa aan qofkaas inuu fiyoobay qofkaas laba mid inuu qofkaas ilaahay ku soo meerka ka qaadeen oo si dhanba xabilan yahay inuu qof caafimaad qaba ahaan oo meer fadhina nimankan dadkaas oo kale way tashkiiliya ummadda waxa loo baahan yahay inuu garab siiyaan hay'adaha guriyo ka soo kacay ninka guriga alaabahan loogu keenay guriga lagu soo xiray umad kale Soomaaliyada soo qaaday waa sidoo u soo kaleento dhagar qaba kala soo qaaday laakiin waxa loo baahan yahay inuu dadaal kale si laba laabo hay'adaha amniga garab la siiyo way dadaalo alxamdulillah wadankeena sidoo hore waa ka sii hagaago 99% hadda wixii la sheegay waa dambi laakiin waxa loo baahan yahay tobanka halka xabo dhiman inuu la sii taxadiraa loo baahan yahay oo shacabka Soomaaliyeed oo ay adag ku sii dhiirigeliyaan si laba laabaan waxay ka shakiyaan telefoonka leeleenka wacaan ilaakum sagaal wacaan marka maxaa loo baahan yahay markaas oo kale way dhiirinayaan marka dadkaas oo kale dadka dhintay ilaahay oo naxariisto waa dad dhalinyaro waxay iska ahaayeen oo ilaahay mustaqbal lahaay oo ilaakum meesha shaaw imaaday meelaha dhalinyarada way iska fadhiistaa meelaha shaaw waa la wada fadhiistaa meelahaas oo kale lagu imaado oo waxba filihiina oo qof ku soo ag fadhiisto oo isqarxiyaado wiilka odayga ka sheekeynay waxa dhahay ninka wuu imaado dhinaco ka soo gari Allahu akbar loo dhahay aabta wuxuu dhahay oo la jiiday ma muxarrig ma wax saas oo odaygan ka sheekay ana dhigtaan dhan wax ka maqluubay marka maxaa loo baahan yahay marka inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadaas oo kale naga qabto wadankeena nabad iyo kala dambeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dabaalo waxaan u duceeynaa walaalayaal gacmaha isqabsano wadankeena waa naga badan yahay qabyaaladaynu iska dhaafno qabyaalada iyo waxa aan ugu soo dhaxdhoomana waxa soo kale inta khilaafka laga soo dhuumana ilaakum siyaasadda oo ila waayaha oo ilaakum doorashada jirto kale waayaha siyaasad dadka siyaasiyiinta ah oo madax isla jiraan inuu ka faa'iideystaan isku dayayeen nimankan marka waxa loo baahan yahay inuu hal meel ka soo wada jeesano shacabka Soomaaliyeed anagana waxaan ilaahay ka tuugeena inuu wadankeena noo dejiyo oo shacabka Soomaaliyeed go'aanka loo soo celiyo siyaasiyiinta go'aanka isku koobeen waxaan rajaynayaa insha Allah inuu shacabka Soomaaliyeed loo soo celiyo gacantooda cid ay rabaan ee ku doorta masiirka ummadda Soomaaliyeed ku aaminaan nin ilaakum soo imaaraad wax ka soo qaatay iyo carabtaas qashinka wax ka soo qaatay oo la doorto waxa ka fiican inuu qofka Soomaaliyeed masiirkiisa gacantiisa ku doorto marka insha Allah waxaan rajaynayaa guul rajayna doorasho nabadoon rajayna waxaan rajaynayaa insha Allah madaxweyne farmaajo inuu markale noo soo noqdo markale farmaajo insha Allah ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa insha Allah ummadda Soomaaliyeed inuu wax ku caafimaad ku jiiftaan caafimaad ku soo kacaan nabadgelyo kala dambeyn wadankeena oo haween iyo maalin la soconaa hadana waa la soconaa laakiin oo wax laga baqaynin oo ilaakum samtay shan qaryeerin insha Allah ilaahay waana tusa horna wadankeena waa u soo mari wadanka adduunka ugu nabadsan oo ahay laakiin insha Allah waana gaarina insha Allah wadanka loo duceeyo khayraadkeena naga badan dadka masaakiinta loo gargaaro walaalayaal soo dhawaada inta dhimatay ilaahay u naxariisto assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakaatuh